gaadiidkan oo ah nooca Land Cruiser-ka ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu abaalmarin ahaan u guddoonsiiyay gudoomiyaha degmada Hiilwaa kadib horumarka uu maamulka degmada Hiilwaa iyo ciidanka booliiska ay ka sameeyeen dhinaca amniga iyo kor u qaadista wada shaqeynta laamaha amniga iyo qaybaha bulshada ka dhaxaysa. gudoomiyaha degmada Hiilwaa Cabdixakiin Cumar Cabdulle ayaa maamulka gobolka Banaadir ugu mahadceliyay abaalmarintani lagu dhiirigelinayo horumarinta amniga. farxad ay noo tahay mar labaad maslaxad maamulka gobolkan waxaan ugu mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta leh macnaha ay u bilaabeen inay maamulada degmooyinka shaqeeyaan inay dhiirigeliyaan anaguna farxad ay noo tahay maanta waxaan dhisnay degmadii berina waxaan dhisi doonaa waaxyihii iyo laamihii inta kale naga dhiman iyo xarumihii taliya ee laamaha amniga taasna iyo saldhiga sababta waxay naga caawinaysaa inaan maalinba tilaabtan qaadnaba tilaab kale inaan qaadno haddii lagu dhiirigeliyo taasna waa wax ugu horeeyay gobolka Banaadir oo markii ugu horeeyay oo bilaabay kuna bilaabay degmooyinka Hodan iyo Hurwaay insha Allah degmooyin kale ayagana waxaan rajeey doonaa wada shaqeyn noocaas in ay la yimaadaan amnigana ay ka shaqeeyaan isku duubni la yimaadaan horumariyaan degmooyinkooda iyo maamuladooda waa maasantiin waxaan rabaa inaan markaan ku wareejiyo taliyaha saldhiga taliya ku soo dhawo gaarigan waxaan jecelnahay inaad kala qayb qaadato amniga deegaanka gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax waxa uu sheegay in degmo kaste lagu abaalmarin doono waxqabadkeeda. marka maanta waxaan idin wadnaa gaari boolis ah oo ugu talagalnay in amniga degmada looga qayb noqdo oo maamulka gobolka Banaadir ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka iyo xafiiska amniga aan ugu soo talagalnay inaan degmada ku wareejino markii ugu horeysay maahan waxaa jira degmooyin badan degmada Hodan oo aan ku bilownay haddana degmadeedana joognaa degmo walbana waxaan ku abaalmarinaynay sida taliyaha saldhiga degmadaas iyo shacabka degmada degan iyo maamulku ay u wada shaqeeyaan annaga gobolka Banaadirna waxaan rabnaa inaan isku tashano wixii tabarteena ah oo aan bilaabi karno wax hore u jira ma ahan waa dhiirigelin iyo maaragtay abaalmarino aan u sameynayno qof walba shaqada uu qabto marka gudoomiye adigana waa ka mahadcelinayna shaqadii aad degmada ka qabatay adigii shacabkaaga iyo saldhigaaga isku xiran waxa marka aan daneensanahay in culays jiro culayskaasna aan rabno wixii aan ka kabi karno ayadoo hay'adihii kale dawladdu ay joogaan oo ay mar walba naga garab taagan yihiin wixii ay qaban karaan annaga gobolkana wixii aan ku dari karno inaan qabanno gaarigaan maanta ugu talagalay inaan ku wareejiyo adigana aad saldhiga ku wareejiso ducaleedo waa degmadii labaad uu maamulka gobolka Banaadir ku abaalmariyo gaadiid ka qayb qaata sugidda amniga kaasoo lagu dhiirigelinayo horumarinta xasilloonida caasimadda iyo isku xirka laamaha ammaanka iyo qaybaha bulshada. Nuur Saciid Haliil telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunta degmada Hiilwaa magaalada Muqdisho.